dhakhtar isbitaalkiisa jooga ayaa waxa u timid haweeney si baan u baadigoobaysa inay uur qaado. miraha ama ugxaanta uurka ayay ka codsanaysay dhakhtarka inuu u sameeyo isi kasta oo uu awoodo sida ay uurku qaadi lahayd, xitaa haddii ay taas micnaheeda tahay dhalashada ilmahan in si anshax xumo uu ku imaanaya adduunka si ay ilmo u rabto awgeed. isla isbitaalka isagoo jooga dhakhtarkii waxa u yimid marwo kale oo dhakhtarka ka baryeysay inuu ka caawiyo sida ay ilmaheeda caloosha uga soo ridi lahayd. sida ay sheegtayna aabaha cunuga ay sido ayaa diiday inuu qaado mas-uuliyadda, mana aysan hayn karin iyada ilmaha keligeed. saas darteed ayay dhakhtarka ka codsanaysay inuu ilmaha ka soo rido. isbitaalkaasi ayaa dhakhtarkii waxa ugu yimid mar kale gabar kale oo tiri waxaan ku daalay mataana dhalidda, waxaan kaa codsanayaa dhakhtar inaad iga joojisid dhalmada mataanaha. cajiib. dhakhtarkii isagoo amakaagsan waa bil gudaheeda isbitaalka waxaa ugu timid haweeney foolanaysa. wuxuu maqlay iyada oo ku dhawaaqaysa duco. markii uu usoo dhawaadana wuxuu dhageystay waxay ku hadlayso. waxaa ilaahay ka baryeysay inuusan siin wiil kale. waxa ay ku daashay dhalidda caruurta labka ama wiilasha ah. waxay horey u haysatay 4 wiil. waxay doonaysay inay gabar dhasho. isla isbitaalkaasi waxaa timid haweeney ninkeeda ugu hanjabayay inaysan guriga imaan karin haddii ay gabar kala dhasho oo ilaahay siiyo. waxay horey u lahaayeen qoyskaasi 5 gabdhood oo wiil la-aan ah. ninka ma doonayn markaan inuu gabar kala dhalo. sidaas ayuu ugu hanjabayay haweeneydii haddii ay ilmahaasi gabar noqdaan inay ku kala tegi doonaan. dhakhtarka ay u cabanayaan intaasoo bukaan oo ay miiska u saarnaayeen dhammaan dhibaatooyinkaas wuxuu ku mashquulsanaa isagoo in ilaahay weydiisto uu ka baryo fursad ay xaaskiisa ku noolaato maalin kaliya, waayo waxaa laga helay kansarka naasaha. geerida ayayna qarka u saarneyd. taasi waxa ay ku tusinaysaa nolosha runta ah inay tahay mid cakiran. baryada qof walba uu rabbi wax ka baryayo waa qof kale madax xanuunkiisa. cid walba kuma haysato nolosha sida ay rabto. si kasta oo taajir, farxad ama qanaaco qofka ay uga muuqan karto, marka uu banaanka joogo hadii jeer waxaa jira wax gudihiisa ku dagaalamaya oo uu diidan yahay, adigana aadan dareemi karin. adiga keligaa kuma tihid caqabadaha iyo dhibaatooyinka kugu hareereysan, mana tihid qof keligiis dareenka uu gaaryahay ee waxa kula qaba 100 qof oo dhibaatadaada maahan kuwa ka duwan oo sida 5 farood ilaahay u kala duway oo kala qaba. waa un nimcada iyo naxariista eebba waxa la isku dhaafay iyo qofka sida uu rabbigiis ugu kalsoon yahay ugana baryo waxaas. qisadan hadda waxaan ka baran karnaa sida haweeney ay ilmo u doonaysay xitaa xaaraanba ha ahaadaane, mid kale ay u doonaysay mid xalaalo ay wadiina iska soo rido, mid ay u rabtay mataana dhalido ay ku daashay in rabbi uu ka joojiyo, mid ay u rabtay inaysan wiil kala dhalin oo wiilal badan haysatay, mid kalena u rabtay inaysan gabar kala dhalin oo gabdho badan haysatay. dhakhtarkii cabashooyinkaasi oo dhan loo keenana uu rabbi ka baryay xaaskiisa inay hal maalin noolaato. sidaas ayay nolosha aadanaha u kala duwan tahay ee ha ka hinaasin nolosha dadka kale. badanaa dusha unbaad ka aragtaaye haddii aad si qoto dheer u dhex gasho qof walba wuxuu wajahayaa caqabado isaga khaas u ah.